نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo dhammaan shaqaalaha ha noqoto injineerka ugu horeeyo shaqaalaha kale ee ka shaqeynayay mashruucan inta deeqda bixiseen oo deeqbixiyaasha iyo laamaha amniga kala shaqeynayay ficlan waa mashruuc aad u weyn mashruucan yoontoy markii ay Kismaayo maqlaan waxay xusuusanayaan mashruucii markii ugu dambeysay 80-aadka aakhirkeedii laga furay laga biyageliyay magaalada Kismaayo inkastoo xilligaas uu yaraa capacity-ga ama mugga uu lahaa mashruucaasi sida hadda ay noo sheegeen loogu talagalay 30 sano koritaanka magaaladu iyo inta ku aaday kolba sida ay noqoto inuu mashruucaasi xamligiisa qaadayo oo macnaheedu yahay mashruuc ku filaan kara aadna uga weyn sababtoo ah mashruucii horena waana qaaday baaxadda uu ku fadhiyay iyo hadda waaskooyinka iyo bamka ku xidhan iyo intuu leeyahay mashruuc aad iyo aad u ah sababtoo Kismaayo waxay ka mid tahay meelaha ugu biyaha liidata laakiin waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa inuu maanta annagu joogna ay hesho biyaha intaas xiriirkoodu leeyahay nadiifta ah biyo webi ah oo weliba intii biyo dhanaan la macaanayn lahaa oo environmentiga ama bay'ada dhibaato u geysan lahaayeen maanta kan ay noqonayso in webigii laga nadiifiyo dhoobada ka soo baxdan ay noqonayso wax fataraazid beeraha loo isticmaali karay iyada lafteeda ay tahay faa'iido labaad waayo biyaha markii la yiraahdo ceel baa la macaanaynayaa waxa ka soo baxay wuxuu kharibayaa environmentigii ama bay'adii dhibaato u geysanaya sababtoo milix iyo kiimika lagu daray baa bannaan imanaysa laakiin tan waa dhoobadii oo la dejiyey oo nafaqadii beeraha leh oo iyada lafteeda loo isticmaali karo ay noqoto wax beerihii loo isticmaali karayo iyadoo noqon karta aad baad u mahadsantihiin allah idin fudaydiyo waan idin ku mahadcelinaynaa injineerada iyo howlwadeennada iyo wasaaradda iyo ciddii wax ku saamiga ku darsatay kulligii waan idin mahadcelinaya assalaamu calaykum waraxmatullahi